sharafta iyo maamuuska ay leedahay habeenkan weyn ee 1 Juulaay ee dhalashadii Jamhuuriyadda Soomaaliya dareenkeeda runta ah waxaa ka sheekayn kara qofkii goobjooga u ahaa habeenkii ugu horeysay ee calanka laga saaray magaalada Muqdisho ee midnimadii Soomaaliya waa 1 Juulaay 1960. 1 Luulyo waxa weeye maalin oo aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed qiimo u leh oo halgan dheerna loo soo maray halgamayaal fara badan naftooda ku waayay sidii ujeedada ugu weyn in laga saaro dalka Soomaaliya isticmaalka kadibna xurnimadiisii inuu hanto markii xurnimadii hantana ujeedadii oo ururadii SYL iyo SNL ba oo ahayd in Soomaaliya oo mid ah ama Soomaali weyn baan iraaho ayaa mustaqbalka ayaa la rajaynay. Soomaalidu waxay tiraahdaa lamood noqon sawayday oo aan ula jeedo heerka maanta Soomaalidu taagan tahay iyo hamigii halgamayaashii dagaalka u galay in dadkooda ay helaan qaran ay harsadaan iyo madax banaani ay riyadoodii noqotay mid laga weeciyay sidii ay rabeen. waana arrin xanuunkeeda leh in 53 sano kadib gobol calan loo saarto. horta runtii marmarka qaarkiisa habeenkii markaan soo tooso waa iska ooyaa wax kale u ooyimaaye waxaan u hayay waxay tahay in halgankii aan soo maray ama halgankii goobjoog aan u ahaa rag badan oo saaxiiba aan nahay naftooda ku waayay in maanta in Soomaaliya la burburiyo Soomaaliya burbur ana Ilaahay inuu ituso laakiin Ilaahay waxaan ka rajaynayaa maalmaha dhow ah oo Ilaahay aan ka rajaynayna inay Soomaaliya xoog yeelato qarannimadii Soomaaliya soo noqoto Ilaahayna waxaan ka baryaa inuu Ilaahay ituso. halgama Cabdiqaadir Cali Boolay oo nasiibkiisu eebba ka dhigay inuu goobjoog u ahaado waqtiyo farxad iyo murugo intaba leh ayaa aaminsan in Soomaaliya aysan ka bixi doonin dhibaatada haysata ilaa laga helo ummad mid ah oo isku kalsoon. marka ugu hore Soomaaliya waa inay isku tashataa waa inay midowda Soomaaliya sida la og yahay waxa way ul iyo diirkeeda marka aan leeyahay waxa waaye kalama maaranto usha iyo diirkeeda way iswataan Soomaaliya oo dhan way iswadataa marka waxaa nasiib darra ah in iyadoo taajirto in wax magaradka qaarkiisa ay ku taahayaan in Soomaaliya gobol laga dhigo taasina waxa waaye midda ugu daran in dawladda cusub ama dawladda qaranka Soomaaliyeed inay ka feejignaato kala go'go'a lagala googoonayo Soomaaliya in laga taxadiro Soomaaliya waxay u baahan tahay maanta midnimo. Cabdiqaadir Cali Boolay oo intii aan la joogay aan ka faa'iiday xigmad iyo taariikh dheer oo ku saabsan halgankii la soo maray ayaa ugu dambeyntii waxaan weydiiyay waxa uu kula dardaarmayo Soomaalida dhalinyarada maanta iyo dawladda hadda jirta. dardaarankayga waxaan lahay Soomaaliyay khaasatan dhalinyarada maanta soo koraysa waxaan kula dardaarmayaa inay ka feejignaadaan qabyaaladda waxaan kala dardaarmayaa inaan lagu beero wadaniyad in lagu beero ummadda Soomaaliyeed dhalinyarada khaasatan waxaan ku boorinayaa inay iska ilaaliyaan wax tafaraaruq ah wax qabyaalad ah inay iska ilaaliyaan inay u soo jeestaan wadankii dawladdana waxaan ka codsanayaa in wacyigelin ballaaran inay samayso maxaa yeelay meel kastoo la tago waa in nin kasta oo mas'uul ah ama nin kastoo dhalinyaro ah inuu ku dadaalo wacyigelin si ummadda Soomaaliyeed wadadii toosneed in la tuso wadadaasoo lagu gaadi karo midnimo Soomaaliyeed. ummad kasta oo halgan u gasha sidii ay isaga tuuri lahaayeen heeryada gumaystaha way gaaraan hamigooda ah dawladnimo iyo kala dambeyn. laakiin dhibaatada Soomaaliya ku dhacday ee ah in nusqarni kadib mar kale dib loo raadiyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed waxa ugu wacan sida dad badan ay qabaan waa qabiilka iyo siyaasadda isku qasan taasi oo sabab u ah
qabyaaladda iyo musuqmaasuqa.